وطمية وكطمية توحيدك ورقبته إلهي كعصبة ورجوجية هيسها يا عجلوينك آد مقرب والبوضتان وآد كلا أما صنيسان وآد كلا تقابنيسان وآد سو إجارنيسان جوجية وإلهي كعصبة قبر أيا جري جرتي آدية آد هيسها وجعلان جرتي مر والبحيسها أيي دقيسان جرتي مر والبحيسها أيي سميستا وحي دارتا عجلوينك هيسها فنان نجرى إلا ويحفظي مجاعيسا هي ماشا أو كيمت هي قرطة أو أرنتا وحيابها سميي هاس نجرت إلا لحن كيدي تقانا وحيابها يسيد اللوغة الحمية أيي تقانا نمان آدي أيي أجعلان جرتي كشينك مركي كجرت أما مطبخ أيي هيسها قاعدة أما دارتا قرق مركي حاقي سيسا ميسا وإن بدن أوقب دهينا كميدة سيدة أيمان تيالان أخيرا إيا قبدي أيا قبدي سكراتك كسو حاضري وحال قاري وقتي أجشا عمل في عن إني سميستا في عنيت ما سميسانين ربي قيت إني وحوهر مرستا في عنيت ومهر مرسانين ربي أيي نعضو فنانين تي جعلاتي قرآنكي كلامك اللي نعضي هاسي جعلاتي في ريح إذا ألكو أبا المري سبحانه وتعالى قبدي أيا لغو أبا المري إن سكراتي سو حاضرو dadkeedii ayaa u soo arooro meesha laysugu yimid culimadii ayaa timido waa ag fadhiisteen kelimada tawxiidka loo laqimo waxaa la yiri laa ilaaha illa allah de ayaduna waa kari weysay laa ilaaha illa allah qofkii ku camal fali jiray oo raaci jiray oo yaqaana macaanideeda iyo shuruuda ay wadataa ku celceliya marka uu sakaraad yahay ama axad heese ka caada dhigtay filima iyo aflaan ka caada dhigtay riwaayada iyo ku sheegtooyinka caada dhigtay iyo inuu masrax mar walba gala uu daabado laa ilaaha illa allah dee u dhaha waa waxaan suuragal ahayn gabadhii waa sakaraad oo nafteedaa la soo aruuriyey jilbaha laysugu keeno waa laga soo qaaday ma kari karta inay rikoor dambe heese ku dhegaysato ma awoodi karta inay mar dambe baxda ay siiriyaha ka soo qaadato cajalooyin heesa ah maanta wixii ka dambaysa adduunkay ka rawaxaysaa aakhiray u socotaa maanta wixii ka dambeeya rabbigeed hortiisaa la geynaa maanta wixii ka dambeeya dhibaato fara badan ayay la kulmi doontaa laa ilaaha ila allah dheh ayaa la yiri laa ilaaha ila allah ayaa agteeda lagula celceliyey ileen horay ayay u dhihi weysay ayadana maca daalika agteeda waa kari waayey kelimada tawxiidka agteeda waa soo qaban waayey dadkii meesha goobjooga ka ahaa ee xaadiray waxay dhaheen afkeeda waxaan ka weynay hadal aan ahayn labadii walaalo ah ninkii lacag leh ayaa weyn sida ayadoo dhahaysay xayaatada uga baxday waa suu'ul khaatima labadii walaalo ah kii lacag lahaa weyn ayay ku celcelinaysay taasaa diin u ahayd nafta ayaa uga baxday ayadoo heesaysa ayaa la dhaqay ayadoo heeskaa afkeeda ku dambeeya ayaa la qaadoo qubuurta loo daadihiyey ayadoo afkeeda uu ku dambeeya heesaha ayaa qabriga la dhigay ayadoo heesaysaana laga soo bixin doona waciyaadu billaah sidaa darteed ayuu rasuulku yidhi qof kasta waxaa lagu soo bixiyaa calaa maa maata calayhi wixii uu ku kor dhinta dushiisa war walaalayaalow idinkoo heesayaa laydin soo bixinin ee heesaha joojiya qalbi madoobaad ayuu leeyahay qalbiga diin alla iyo heese islama galaan ee aad iyo aad u dadaala oo rabbigiin ka cabsada ilaahay asagoo noo tilmaamaya khatiirada iyo khatarta heesaha ay leeyihiin dhibka iyo mashaakilka heesaha ay leeyihiin iyo sida uu nooga digayo fiiriya allah subxaana fadlan like saar ama comment ka bixi ama subscribe dheh si aad u heshid muxaadarooyin cusub